waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a doorashooyinkii jamhuuriyadda somalilan oo saacado koobani ay inaga hadhsan yihiin iyo maanta oo gebi ahaanba magaaladii hargeysa laga kala boqolay oo ay u eg tahay markaasi magaalo fasax ku jirta ama yacni jimcaha ayaa magti teelteel ahaan jirtay magaaladu waxaana hadda dadkii ku xoonsanaa magaaladu ay u kala yaaceen gobolada jamhuuriyadda somalilan basas ayaa lagu kala gurayay dadka iyaga oo markaasi gobolada iyo degmooyinka loo kala dhaqaajiyey qof walba meeshuu kaarka ka qaatay diiwaangelinta ayuu ka soo codaynayaa waxaana hadda iskugu soo hadhay hargeysa dadkii reer hargeysa dee u dhashay kolley mala yaro tiradooda waa 550,000 oo cod badina waxaa la saadaalinayaa inay xisbi xaagga kulmiye ay markaasi taabacsan yihiin oo markaasi guul weyn halkaasi ay ka soo hoyan doonto taasi oo ilaa 360,000 oo cod la saadaalinaya inay u codayn doonaan xisbi xakanka haddaba qodobada aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna waxaa kaloo ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo maanta mar dhaweytoole ka hadlay khudbadiisii ugu dambeysay xilligii markaasi dee xilka oo hadda markaasi hayo oo doorashada beritoole loo dareerayo ay kaga dhan tahay kaasi oo uu markaa kula dardaarmay reer somalilan in ay nabadda ilaashadaan si nabada u codeeyaan sida oo kalena ictiraaf iyo aqoonsi u codeeyaan sida oo kale waxa uu gaashaanka ku dhuftay oo markaasi fariin adag u diray Jabuuti oo faragelin baan ku haysa markaasi jamhuuriyadda somalilan waxa aynu eegi doonaa khudbadda madaxweynaha sida oo kalena faragelinta ay ku hayso ayaa waxa kow ka ah markaasi inay ganacsatadii reer somalilan xitaa ay u hanjabtay oo ina ognahay ninkiina u siciid xitaa inay markaasi ay farabaas ku hayso oo ganacsigiisa ay markaasi tiri waa lagu xayiraya haddii kale khasab xagga markaa mucaaradka uu coday bay ku yidhaahdeen faahfaahin dheer ayaan idiin hayaa iyo markaasi Jabuuti bal waxayna daba dhigay marka ay nagu haysato waxa weeyaan maxaa la idiin aqoonsaday iyadoo dacayadii propaganda ka dhigtay Itoobiya raaceen iyadina Itoobiyana haysatay hadda doonaysa sida oo kalena Soomaaliya xitaa iyada dabada ka turbaaninaysa oo markaasi cadawga koowaad ee jamhuuriyadda Somaliland sacadeeyay weeyaan iyo dhinaca kale dowladda fadhiidka madaxweynuhu sidoo kale fariin u diray in iyaduna qaska iyo qasaale wasaalanka iyo markaa dabajiitanka ay ka daysa jamhuuriyadda somalilan iyo xagxagashada waxa uu madaxweynuhu u sheegay markaa reer somalilan inay u codeeyaan ictiraaf iyo aqoonsi iyo somalilan oo dowladda caalamka markaasi ku biiri doonto ictiraafkeena in yarba inooga harsan reer somalilan faahfaahin dheer ayaan idiin haynaa kusoo dhawaada barnaamijka وهاك أنكو بلونا برنامج كأ doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan ee muddo badan la sugayay ayaa waxa ay qabsoomi doonaan oo hadda markaasi inooga hadlay wax ka yar 11 saacadood ayaa ka dhiman 6 subaxnimo ee beritoole ay markaasi bilaami doonaan iminkana waa 7 habeenimo ilaa 10 saacadood 12 saacadood baa ka hadhay calaa kulli xaal doorashooyinkaasi insha Allah nabad bay noogu qabsoomi doonaan qof walba kaarkiisii ayuu markaasi soo dhaweystay kaarku ku codeynayay waxaana hadda markaasi inoo ballan ah in aynu u codeyno madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan hadda maadaama uu yahay madaxweynaha keliyata ee ku suntan aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan waa madaxweynaha ay la culoobeen cadowga jamhuuriyadda somalilan ee isqarinayay ee markaas inta sano fajidayno aasiya ilaa madaxweyne cigaal aqoonsigu raadinayay يعني مر walba waxa in xanjaro wajaasaynay oo jilaafooyin noo dhigay oo hadda markaasi godadka ka soo baxay oo iscadeeyay waa wadamada Jabuuti iyo Masar dawladda Soomaaliya fadhiidka iyada weyn ogeeyeen cadow weyn inuu hayd haddaba kulli cadowgii Soomaaliland oo dhan madaxweynaha la dagaalamayaan hadda ee ay markaasi dagaalka xoogan kula jiraan waa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi si uu aqoonsi u keeno oo aynu dawladaha caalamka uga mid noqono ayaa loo baahan yahay markaasi in aynu filagooda gallo aqoonsi wax yar bay nooga hadhay madaxweyne Biixi hal doorto sida oo kale lambar 2 ayuu markaasi ka jira madaxweynaha moogtay warqadda codeynta madaxweynuhu waa lambarka dhexe lambar 2 ayada calaamadinaysa sidoo kale la xisbi
ku suntan moogtay dee aqoonsiga Somaliland way ognahay waa xisbiga kulmiye xisbigaasina loo codeeyo maanta leeyahay inta ka sokow cadowga Somaliland dhamaan indhahay nagu hayaan saasay noo soo eegayaan waxaanay markaasi ay wadaan fajiyo badan oo markaasi intaas oo dhan ay ku hawlanaayeen inay marun karkaarka weydaariyaan madaxweynaha nafta u keenay cadowga Somaliland wax kale nafta ugu keenin waa aqoonsiga uu noo raadinayo iyo in dal jiran noqono ay iyagu u arkaan markaasi inuu danahooga ku ciyaaray Djibouti baa tiri dhabarka tooreynaya istaajisay yani waxa weeyaan sideeba dal jirta aad u noqotaa oo aqoonsi u raadsataa mad anaga hoos joogtid Soomaaliya hoos joogtid bay ku leeyihiin يعني reer Somaliland maanta waxaynu kala dooranaynaa aqoonsi iyo markaas in caalamka ku biirno oo madaxweyne biixi ku suntan yahay yeena moogtay dib inoogu celisaan Soomaaliya oo markaas wadani cirray ku suntan yahay runta hadan idin sheego waxaan idin leeyahay ha loo codeeyo madaxweyne biixi insha Allah saasay noo balana madaxweynuhu inala dardaarankii madaxweynaha inaynu qaadano weeyaan cadowgeena fartu inoogu fiiqay markaasi sidoo kale jawaab kulul baanu siiyay Djibouti hadaba qodbada madaxweynaha oo waxyaabo badan oo markaasi inoogu faahfaahinayo ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka intiisa dambe ee dhageysi wacan الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله haddii alla yiraahdo berito waa 13 November 2024 dhammaan shacbiga Somaliland meel joogaba iyo waqti uu joogaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taariikhda beri ah waa maalin qaran waa maalin taariikhda Somaliland ka gali doonta baal dahaba caalamku dhamina soo eegayo waa maalintii aynu muujinay qarannimadeena iyo inayna ka gaareen oo aynu u dhowrahayna maanta inaan xaqiijino Somaliland oo qaran madax bannaan dhammaystiran ah oo adduunkuna ictiraafo oo golayaasha caalamka looga taliyo ka mid noqoto shacbiga Somaliland ee geesiyaasha ah ee adkaysiga badan ee dib walba ka dambaasha waxaan u sheegayaa berita inay tahay maalin kale oo loo baahan yahay inaynu codkeena ku bixino inagoo isku kalsoon inaynu qaran madax bannaan nahay inagoo oo midnimadeena muujino inaynu muujino foodkeenu inuu yahay mid ah qarannimada Somaliland oo uu ka sarreeyo laba qof oo baratamaya saddex qof oo baratamaya iyo madaxweynayaal isbedelaya oo kaliya afaristo sanadood hawl adag baynu soo wadnay oo ku xaqiijinayno madax bannaanida Somaliland qolaada badan dagaalo badan ayaa inoo soo maray oo la doonayo in lagu duujiyo qarannimadeena sanadihii dambe way dhaaftay hadal iyo propaganda iyo dood gacan iyo adduun la qaybiyo iyo dad la isku diro intaba way lagu soo qaaday ilaahay hadii waxa ay Somaliland ka badbaaday oo si fiican u difaacday qarannimadeeda codkaaga bixinta aad bixinaysaa marka lagu dhiibo kaarka cod bixinta ee aad gasho kaliya halka laga codeynayo kaarka aad sida ee calaamadeynaysaa wuxuu sidaa koow nabad waa inuu sidaa laba midnimo Somaliland waa inuu sidaa horumarinta qaranimada Somaliland waa inuu sidaa aqoonsi buuxa oo caalamiin lagu helo waa inuu sidaa inta marka uu gacantaada ay ku jirto qof muwaadinka waxa laga rabaa in uu ku rido warqada sanduuqa isleeyahay ama uu aaminsan yahay inuu Somaliland inta u keeni doono anigu madaxweyne ahaan waxaan maanta ku dardaarmayaa dadka Somaliland ee codeynaya caalamka oo dhan wayna soo eegaya waaragteen waxay noo ajaanib fara badan oo wardoona oo doonaya inay hubiyaan dadka Somaliland tayadooda kaljacaylkooda midnimadooda iyo iskaashigooda seen hore way badan ugu muujinay waa inaynu berita intaaba muujinaa oo qiimaha ay leedahay doorashadani aynu ka dhignaa kii aynu adduunka ku qarcinay
markii sideedaad aynu codayno waxay ilaahay mahadiya oo qof wal oo Soomaaliland meel jooga sharaf oo tixgelin oo caalamka dhan ku leeyahay iyada oo la leeyahay lama ictiraafsana oo qolada xamar joogta ay leedahay oo gobolnayo kanaga mid oo aan xukuno aanay kala xishoon oo ay dafreen inay noocan laba dawladood oo midoobay oo ay toodaas ku dhagan yihiin waxa ilaahay mahadiya doorashooyinka qabanay oo sideed sidaan u soo habaynay maaragtay xor iyo xalaasha codku u dhaco isaqbalaada iyo nabad isku wareejinta xilka hadba cidii shacabku doorto oo inagu intaaba aynu ku soo guuleysanay aan huwa Britain ku guuleysan doono hadii la yiraahdo aniga oo dadkayga dareenkiis waxa loo socdaa ahayd hebel ku bedelay oo socota qaranka dhis oo caalamka ka dhaadhici oo xuquuqda ku dhacsan doorashada ay tahay waxaan huwa dawladda xamar taa ku kacday waxa soo ka dhankay dhala wali inaanay gaarin iska dhaaf doorashada dadweyne حتى مدحوينها انت ادوك ولا aqoonsiye in shir weyn lagu doorto aan la gaarin waxa doorto dhowr boqol oo baarlamaan oo iyagana qaar kood awgeedeen kiisa lagu doortay wajigooda inuu qaar xidhaa ay qarsanaan dadka dooranay waxay noognahay in caalamku dhan uu yahay marka la dooranayo baarlamaanka Soomaaliya ee xamar lagu dooranayo adduunka lagu bixiyo qiimaha dadka qofka lagu sheegay in adduunka dhan dhageysto oo ay gaadho $1,000 $1,000 bay dhafta بريت على مدة شعبي الصومالي كل شيء إلى يسم تصان عربك إلى إنه هاي قرن موشرة يوم الدمدود سوى يقول بسريهن دور الشر سوى يقول بسريهن مامرك الدلكود سوى يقول بسريهن إلى عدو الدفاع ما أنت اعتراف أنت وروي إنه قدوي هو إنه قدوي وأمرك أورسي إنه حلي دولة إنه قدوي حشيسة inaan wax iska bedelano oo ay iyaguna aqoonsi buuxayna siiyaan inaguna aan barbiyo siin waxay la tahay waa fursad Soomaaliland taariikh oo soo maray waxaad maqli doontaan ummad badan oo afka Soomaaliya ku hadasha oo danahooda mid walba raacay oo inaga ugu dhaga barjeeya Ethiopia dalaga iyo dalkii la siiyay Ethiopia loo tagayaa Soomaaliya Ethiopia dooratay waxaan sheegayaa shantii Soomaaliyeed midoo halkiisu dantiisa ka raacday saddex labadii midoobay midoo waa taatiga anagu ma dawladda idinku wadaalahayn ee Afrika soo ku isku maranahay saddexdii kala mid walba dalkii uu joogay laba dalkii ay joogeen mid walba wax ku darsaday oo kamid yahay kii kale Djibouti maanta waa dawladda ugu dhow Ethiopia caalamka oo dhan ee la macaamisha kala shaqeysta haddana ka xalaaqsan maxay Soomaaliland Ethiopia ula macaamilaysa inaguna eedanaysa waliba eeda aynaan lahayn inoo soo jeedin shirban lagu qiyaamay nabarkan laga jabiyay alliya wax ka loo geystay maxaa dantiina u raacisaan ayay waxa soo dagaal u socda ma taasina meesha ma qabato anagu walaal tani waan u haynaa waa hadii alla waafajiyo noomay tirin jirin oo tari karaan هذا يسكر سيان بينه هين لكن عالم كواحد كنا دعيا ولا خيانة ما يقولوا شربان كوك أفسرني شركة الأسواق أفكرن فيش ضرب على شراله هي أربعون هذه الشراله لكن محاط هلا ولا مقاضيسا قردنا وقع وطلع الكيير معي كاسنا وفرين قارون ودراي قلنا حمر دورشان قال له تستداد أدنى ولي دورش ما هذا هيس هل كانت شوكتنا وادرتي ما أنت شو بتكت شو بلان بس أنا هروتك لا بينامي فرنسا أتري تودي كلا صار يا جبهة وكادي قرن مايو أود لو تنسى أنك العالم كأولى هذا هاي بدر قبل تاسواني دماتها دورشان ماتها وأنا كنا ماتها سوماليا أفهم يسر قرن مدينة وين كموشنا دورشان وين غير يا واحد فرحانة وعلى كفر وفكنا حمويان لما وقف وجوجا سفر جروان وحلب واي وحنا إلى شرنا قرنودي مركو إذا ما كان وحي وصار صار القرآن بدي لا إنه صار يبدأ دورشك
iyada oo loo qoslayo gacmaha la haysto guul ay watahay waa la saaqbaa oo aanay ka daba iman hadal iyo gunu wadinta qaariga Soomaaliya meel aan joogo waxaan leeyahay war Britain taas ma naafacda wixii ay soo maray dhexdeen ee campaign-ha ee Afrika waxaan laga shubayay baalkan TikTok iyo Facebook iyo wixii laga hadlayay waxa tuura xasaba golaafta baalana propaganda soo dad u soo jiido maanta tarkiib taaganaya qarniyoodii qofka maanta ama nabad waxyeelo shirka dhexdiisa inta ay doorashada socoto ama qarannimo u codeyn waaya ee wax hoose u codeeya oo isaga gooyo ee itiraaf u codeyn waaya ama khalkhal tuulada raata ama baatay galiya ee natiijada markuu hada isaga oo qarankiisa u guuleysto akhay kii ay dad u doortaan ma aqbalay ma Soomaaliland warkiisa horjeeda oo xumaan mar labaad Soomaaliland meel ay joogtaba way dibad ku yariyo kuwi hadda habeen maqlasay hadda maalin maqlasay waxaan leeyahay Brito waa inuu qoraa taariikh Soomaaliland aqoonsigeeda raadinaya nabadeeda ilaalinaya cadawgeeda iska celinaya wixeedana wixii khilaafaadka ka yareysanaya codkaasi oo Brito soo baxaa iyo nabadaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسوحوا مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن موسى بيحي عبدي oo marka khudbad dardaaranay noo jeedinayay reer Soomaaliland maanta in ay taagan tahay qarannimadii jamhuuriyadda Soomaaliland in la rumeeyo oo markaasi aqoonsi buuxa si loogu raadiyo wayna madaxweynaha mar labaad doorana albaabka aqoonsigii taagan yahay heshiiskan Itoobiya la galayno hadda la saxiixi doono iyo sidoo kale Trump oo inoo ballan qaaday 100 maalmood ugu horeeyay inuu siin doono aqoonsi maanta inagu aqoonsiga arkayna inaynu wada kala marnaa qalad baynu ku tahay dambi wayna riyeena ka ruumeynaa wayna madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mar labaad dooranaa si aynu rajadeena riyadeena u ruumeyno cadowga Soomaaliland waa inaynu niyad jabinaa oo markaasi aynu tusnaa inaynu madaxweynaheena jecelnahay oo aqoonsigeena jecelnahay oo aynu midnahay oo ay naga go'an tahay inaan dal jiro noqon oo ictiraaf helno saas insha Allah inoo balana ballankeenu waa lambar 2 iyo kulmiye inaad u codaysid marka doorashada madaxtinimada oo markaas madaxweyne Biixi aad u codaysid iyo markaas sidoo kale xisbiga kulmiyana waa inaad u codaysaa oo markaas aad soo saartaa waa xisbiga ku suntan aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland laftarkiisu saasay noo ballantan kulanteena dambe nabadgeliyo